Sawirka macallinkii dilaaga ahaa oo hadda sugaya in lagu fuliyo xukunkii maxkamadda ayaa maalmahan si weyn u qabsaday baraha bulshada ee loo isticmaalo qeybaha hoose ee aragtida lagu dhiibto qormooyinka iyo muuqaalada lasoo dhigo Facebook-ga. Waxa uu noqday meel walba oo Soomaalida joogto ee caalamka ka mid ah inay isla wadaagaan sawiradiisa, gaasatan markii aad dhiibanayso ra'yi ku saabsan waxaa dhexdaada ka guuxaya ama siyaasadda, kaftanka iyo fanka iyo waxyaabaha kale. Waxaana barnaamijkan uu ka baxay Radio Muqdisho, codka Jamhuuriyadda Soomaaliya ee TV-ga qaranka Soomaaliyeed ee SNTV, waxaana baahiyay Cabdicasiis Maxamuud Guuleed Afrika oo khabiir ku ah sida loo baahiyo barnaamijyada ku saabsan argagixisada iyo Al-shabaab dilalka ay ka geystaan magaaladooyinka Muqdisho iyo qeybaha kale oo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Macallin Ilka Case macallin kaliya kumaana ahayn jeestada, waxa uu kaloo ahaa macallin dadka bara sida wax loo dhakro. Xataa waxa uu TV-ga qaranka Soomaaliyeed iyo Radio Muqdisho uu la wadaagay in uu dadku u bilaabo ama dhaawac u geysto siday u dhammaystiraan kaas ay ku bartaan sida dadka loo dilo kooxaha amniyaadka ee Al-shabaab ka tirsan. Macallin Ilka Case ayaa hadda sugayay in lagu fuliyo xukun maxkamadeed, balse waxa uu noqday barnaamijkii Gungaar, barnaamij saameyn badan ku reebay qulubta dad badan oo Soomaaliyeed. Waxaana jiray muuqaalo dad badan oo daawanaya oo ay la wadaageen Cabdicasiis Maxamuud Guuleed Afrika iyo Radio Muqdisho, codka Jamhuuriyadda Soomaaliya, dadku ka sheekeynaya raadiyadooda ama qoraallo ay la wadaageen. Laftigeygu waxa uu igu reebay argagax, sidii aan kaga naxay sidii macallinkan oo kale u dilayay dadka iyo dad badan oo sumcad iyo sharafba ku dhex lahaa bulshada Soomaaliyeed, kana mid ahaa shaqaalaha dowladda iyo kuwa hay'adaha iyo shirkadaha qaar u shaqaynayay. Waxaana xusid mudan in magaalada Muqdisho ay tahay halka ugu badan ee amniyaadka dilal qorsheysan ay ka geystaan, taasina ay fududahay inaan dad badan oo aadan aqoonin ee aad u haysato inay yihiin asxaabtaada iyo kuwa wax kula barta iyo kuwa kula shaqeeya ay jiri karaan in Al-shabaab ay u shaqeeyaan. Gungaar ayaa waxaa kale sawiradan laga soo xigtay, waxaana laga soo qaaday muuqaalka ayaa laga bixiyay. Waxa uu soo bixiyaa astaamo kala duwan markii uu faraha tilmaamayo oo kale. Marka ugu badan ee dadku isticmaalaan ayaa ah markuu farta isku fiiqayo oo ay dadku aad u isticmaalaan, iyo markuu faraleyda uu taagayo ama saddexda farood uu taagayo, taasoo ah in aad saddex shay qof ku xujeyso amba aad keento saddex su'aalood oo ka mid ah ra'ligaaga ah. Tusaale, qofkaas aad u jawaabayso muuqaalkiisa waa inaad isticmaashaa saddex eray ama aad tidhaahdaa sidaa ma aha, sidaa bay ahayd, sidaana way noqon kartaa. oo tusaale ahaan anigu u soo qaatay waxa uu yahay waa sawirka aad ku arki karto daily life-ka ama nolosha maalinlaha ee Facebook-ga ayuu ka mid noqday. Haddii aad tahay daawade Gungaar ka mid ah ama barnaamijkan hadda daawanaya, maxaad u isticmaashaa sawirka macallinkii dilaagi ahaa? Maxaad kala jeedaa? Ma kaftanba? Ma dhagar kale ayaad la maleegayaa? Ayaad is oran kartaa sida ay tahay? Waxaan jeclaan lahaa daawaday haddii uu barnaamijkan kusoo gaaro inaad igugu reebto qaybta commentiga hore, sida aan u ogaano sababta ka dambeysa macallinkii dilaagi ahaa oo xukun suga ah sawirkiisu uu noqdo sawirka ugu saameynta badan, maadaama kooxda Al-shabaab dad badan oo u shaqaynayay ee maxkamadda ciidamada qalabka sida ee darajada koowaad ee dil ku xukuntay laguna fuliyay uusan saameyn gooniya uusan sameyn. Waa maxay sababta ka dambeyso in macallinkii dilaaga ahaa Ilka Case uu saameyn intaan la eg sawiradiisu ay ku sameeya ee ku yeeshaan baraha bulshada? Ra'ligaaguna waan jecelahay inay la wadaagto. barnaamijkan anigoo Maxamuud Milaana ayaa idiin soo jeedinaya. Intaan dib u kulmi doono daawadayaasha aanu jecelnahayo, sidaa iyo nabadgelyo. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صومالي نبض ميل والبواد عالم كجوكتان. Somali ba tamar yaro intaan addigu in karansan